soo dhawaada dhegaystayaal meel walbo joogtaan maanta waxaan halkan idinkugu hayaa qiso jacayl ah oo la magac baxday beeni raad male waxaana idin soo tabinayaa anigoo ah Saalim Yare qisadan ayaa waxa ay u dhacday sida tan qisadan ayaa waxa hogaamiye u ahaa Maxamed Xasan iyo Deeqa Maxamed ayaa waxa aad u jeclaa Deeqana sidoo kale Maxamed ayaa waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u furfuran balse ka jilcan xagga dumarka Maxamed ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad ugu faraxsan xiriirka Deeqana sidoo kale walow ay ku faani jirtay isaga inta badan waxa ehel u ahaa qadka iyo taleefanka gacanta walow ay is arki karin inta badanba lamaanahaasi oo maalinta ka dambeysay jaceylkoodii kor u sii kacay ayaa waxa dhacday Maxamed Xasan in uu bartay gabar kale oo magaceedu ahaa Suleekha ayaa waxa ay ahayd gabar aad iyo aad u degan xagga dabeecadda hadalka iyo quruxna Ilaahay uu heybad u siiyay Maxamed ayaa waxa uu helay nambarka Suleekha Maxamedna mar walba waxa uu kala hadli jiray qadka iyo taleefanka gacanta Maxamed ayaa waxa uu noqday mid dooqiisu badan yahay isna aanan is ogeyn isla markaana Maxamed waxa uu bilaabay in uu kula hadlo ereyada dabacsan ama soo jiidan kara Suleekha walow aanan looga baahnayn in uu kula hadlo Suleekha ama uu adeegsadaba kadib waxa dhacday in uu xiriiriyo habeen iyo maalin Suleekha isagoo xiriirkii Deeqana hoos ku sii socda waxa saaxiibo ruux ama saaxiibaanan kala harin ahaa Deeqa iyo Suleekha walow uu Maxamedna midaas mooga Maxamed ayaa waxa uu ayaamaba iska dhex arkay Suleekha in uu xiriirinayo in uu raadinayo kadib waxa uu iska dhaadhiciyay in uu jecel yahay isagoo aan wali kala garan xiisaha iyo jaceylka waxa ay kala yihiin waxa kale uu ilaabay in xiriir jaceyl ka wada dhaxeeyeen Deeqa Maxamed ayaa habeenada kamida waxa ay si fiican ama si joogta u wada sheekaysteen Suleekha isla markaana waxa uu ka codsaday ama uu sheegtay in uu jecel yahay ugana baahan yahay garab Suleekha ayaa waxa ay weydiisay in uu xiriir kale leeyahay Maxamed ayaa taasna ku jawaabay in uusan xiriir kale ama gabar kale xitaa wiligiisa uusan jecel soo arag taasoo Soomaalida ay ku magacaabaan waxbadsi waxbeel ayay leedahay kadib Suleekha ayaa ku soo dhaweysay xiriirka jacayl ayaduna u sheegatay inta badan in ay xiiseyso hadalkiisa oo ahayd gabar kaliya weligeedna xiriir ama jacayl aan soo arag Suleekha iyo Deeqa ayaa ahaayeen kuwa mar waliba iska warhaya xagga qadka taleefanka gacanta iyo maray isku yimaadaanba waxa ayna ka wada hadli jireen xiriirada jacayl iyo waxyaalaha kale ee noloshooda walow uu nasiibkuba ahaa in ay istuseen sawirada kadib ayaa Maxamed isagoo isku korwaday labada gabdhood Deeqa iyo Suleekha ayaa waxa dhacday mid saddexaad in uu bartay oo ku magac dheereed Rawdana waxa ay ahayd gabar aad iyo aad u furfuran Maxamedna aad ayuu ugu farxay barashadeeda waa uuna u sheegay midaas ayadana sidoo kale barasho kadib isagoo labadiina wada Deeqa iyo Suleekha Maxamed kuma uu siisan daahir Rawda waxa uu ku bilaabay in uu ammaano quruxdeeda socodkeeda dhammaan xubnaheeda oo idil Rawdana waa ay uga mahadcelisaa mar waliba balse waxa ay la yaaban tahay inta yar ay is yaqaanaan iyo inta ammaano isaga sheegayo kuma uu siisan daahina isbuucyo kadib waxa uu bilaabay in uu Rawdana jacayl u sheegto isagoo og laba kale in uu la socdo Rawdo ayaa ku soo dhaweysay jacaylkiisa ayadoo tixgelinaysa nafsadiisa balse ayada xaggeeda uusan waxba jirin sidaasi waxa uu kula socday 3 gabdhood oo saaxiibaha ama xiriir la lahaa ayagana sidoo kale wax wara uma hayaan